milkilaha dawladda taliyaha labada aag Abu Camar ama Fahad Yaasiin magaca afgarasho ee aad u taqaan ku ahaadaba hadda waa ninka raba inuu Soomaali ku qasbo inay kala doorato laba daran mid waana dagaal sokeeye iyo xukunka farmaajo ee kalitaliska ah dad badan ma ogeyn wajiga dhabta ah ee Fahad ilaa uu afka furtay Axmed Muuse oo aqoon xeel dheer u leh Fahad Yaasiin كان هو عضو في بدأ حياته الجماعة السلفية الجهادية markii hore wuxuu xubin ka ahaa bilowgii kooxda salafiya jihaadiya kadibna wuxuu ku biiray jamaacada ikhwaanka wuxuuna ka mid noqday ragga aadka ugu dhow Yusuf Al-Qardaawi kadibna Al Jazeera ayaa u qaadatay wariyaha u jooga Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho muddo ayuu ka shaqeynayay Al Jazeera waxaana la soo marsiin jiray lacagaha maalgelinta ah isagoo isticmaalaya magaca wariye Al Jazeera ka tirsan wuxuu ka qayb gali jiray kulamada madaxda sare وهو مراسل لقناة الجزيرة فهد ياسين waxaa sanadkii 2019 laga noqday baasaboorka wadanka Kenya laakiin waxa la aaminsan yahay inuu wali haysto baasaboorada qaar ka mid ah dalalka dariska la Soomaaliya Qatar iyo baasaboorka Soomaaliga muran kama taagno inuu xubin sare ka yahay sirdoonka dalka Qatar laakiin waxa su'aal laga keenay kaalintii uu ku lahaa kooxaha argagixisada ah ee Soomaaliya Sheekh Xasan Daahir Awees oo saaxiib dhow la ahaa xilligii jihaadiga ee Xisbul Islaam ayaa toddobaadkii la soo dhaafay mar uu fariin digniin ah u dirayay madaxweyne Farmaajo waxa ka soo fakaday eray dad badan ay su'aal ka keeneen ereygaasi oo ahaa mid shaka cusub ka abuuray dadka sida dhow la socday taliyaha isqariya ee Nisa dadkan marka ma ahan dad aad maartay bahalkii aad isku haleyn kartid ma ahan mid kale oo ku sheegi lahay wax weeyaan wiilkan hayo loogi wiilkan aniga waxa uu igu fadhiyaa waxaan sheegaa Fahad Yaasiin wuxuu hore ugu fashilmay inuu aragtidiisa ka gado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana dadka sida dhow ula socda siyaasadda ka warqabeen in Fahad uu ka shaqeeyay sidii uu saameyn la mid ah tan uu ku leeyahay taliska farmaajo ugu yeelan lahaa dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud laakiin taasi u socon weysay saaxiibkay Fahad wiilkayga disaster uu ka shaqeeyo waana u sheegnay caawana public la hoos waa ugu sheegnay public nin caawa ugu sheegayna Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo in ka badan 20 sano ay shaqaaneen Fahad Yaasiin ayaa ka warqaba inuu ururada xaq jirka ah qayb weyn kaga jiray Fahad Yaasiin wuxuuna ka sheekeeyay inta uu ka yaqaan aragtida siyaasadeed ee taliyaha labada aag aragtida siyaasadeed oo weyn oo dalka lagu maareey karo san lahayn marka wuxuu jecel yahay inuu xoog ku marsiyo aragtidiisa cariiriga ah inuu meel ku cariiriyo أنا أيتين واحد سوق قبتين حشيخ حاجة كثيرة كنت من فكرة النعاس وصادق فكر كاس وحوم علينا سلفي قاسيد أسامي اتحاد محمد عبد الله فرماجو oo jooga Nairobi han siyaasadeed uu ku jiro hase ahaatee aan haysan qarash uu ku galo ololaha doorashada iyo Fahad Yaasiin oo xambaarsan fikirka xaq jirka ah iyo danaha dawladda Qatar ayaa Kenya ku gaaray is-afgarad cinwaan looga dhigay in Soomaaliya laga hirgeliyo nidaamka ligitalis ah Fahad ayaa qaatay mas'uuliyadda lacagaha ku baxaya ololaha doorashada isagoo maanka ku haya qasnadaha malaayiinta dollar ay ka buuxaan ee wadanka Qatar haye warqad cadan wataay wax ku qorta idinkana halkaan iska fadhidaan jeebkiina waa idin xiran yihiin martaa inaad wax ku darsataan moogta ninkaasna dal hebel yu aaday dal hebel Soomaaliya danu ka leeyahay warqadaas wax lagu qorayaa marka hadda wax leeyahay war ninkaan nin Soomaaliyeed ma ahayn muxuu wax u haleynayaa ما إنك ما حليناي وما تكلم شقية لكن إنك إني مش شقية معايا إنك حكومة درسنا Fahad iyo Farmaajo waxay aaminsan yihiin in dalka laga hirgeliyo xukun dhexe oo awood badan laga gudbo federaalka iyo dastuurka loona gudbo dawlad la mid ah tan ka jirta Eritrea haddii aan laga dhigi doonin sida Qatar oo kale dal boqortooyo ah reerka madaxweyne Farmaajo kursigan dhaxal u yeeshaan taasoo ifaalaheeda uu ka muuqdo markii xabsiga la dhigay Muqtaar Roobow oo musharax ah Cabdirashiid Janan oo maxkamad ay eedeysana sida boqor diyaarad lagu soo galbiyay aragtida taaka daran ee naxdinta leh ee Fahad iyo Farmaajo aaminsan yihiin ayaa ah in ururka Al-Shabaab aan la dagaalin waqti badan la isaga lumin kaliyana madaxda ururkaas looga yeeri doono dalka Qatar si ay heshiis ula galaan Fahad iyo Farmaajo Soomaali oo ka soo daashay qabiil dagaal sokeeye iyo fowdo suuragal ma tahay in mar kale dib loogu celiyo casharadii xanuunka badnaa ee laga bartay dawlad la'aanta 20 sano ee la soo dhaafay adiga aragti ahaan xagee is leedahay waa noo wadaan Fahad iyo Farmaajo